xubnaha guddida horumarinta deegaanada Murudijeex Salaaxle iyo Sabawanaag ee sahan barwaaqo saxaafadda kula hadlay caasimadda Hargeysa ayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinka qaranka iyo shacabweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku bogaadiyeen hanaankii ay u hirgeliyeen doorashooyinka isku sidkanaa ee wakiilada deegaanka ee dalka ka qabsoomay 31 bishii May. xubnahan oo kala haasaraya dhaqan Yaasiin Maxamed Aadan, Cali Daahir Geyle, Guuled Curaagte iyo Cali Qaalib gudoomiyaha guddida horumarinta sahan barwaaqo ayaa waxa ay madaxweynaha xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinka qaranka iyo mudanayaashii u tartamiyay doorashooyinkaasi ay ku bogaadiyeen hanaankii doorashooyinkaasi loo galay iyagoo sheegay in doorashooyinkaasi ahaayeen kuwa mucjiso isla markaasina beesha caalamka indhahooda soo jiitay. qaranka Soomaaliland ee maanta qabsaday doorashooyinka isku sidkan ee aan hore dalkeena ugu dhicin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin reer Soomaaliland. ugu horeyn madaxweynaha saddexda xisbi qaran komishanka dhammaan intii isla kaashatay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxa weeyaan wax laga bartaa maanta sida quruxda badan ilaa bari ilaa galbeed degmo kasta doorashadu ay si nabadgelyo ugu dhacday ee aanay maanta jirin wax dhibaato ah oo shil baabuur ka badani aanay haba yaraatay ee ka dhicin iyo wax iska hor imadkii taasi horta mahad ilaahaya. saddexda xisbi qaran ee sidii adduunweynaha uu horumaray maanta aad moodaynayno inagu kaga haboonahay sida aynu ka yeelay waxa la yiraahdaa doorashooyin noocan Afrika aad uga hirgalaan. marka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland sidii bilaa faragelinta ahayd ee ay markii hore doorashada u qabatay ayadoo aan caawimo badan oo adduunka aynaan helay budgetkeedii iyo kharashkeedii iyo hawlaheedii u maamushay iyo talabaad oo ugu weyn ugu qaalisanahaydoo hadii jeer dhowr iyo 40 cishaa la qaylin jiray oo dadku sii dhiman jiray oo la isla jabi jiray way soo koobtay maanta dawladda Soomaaliland si wanaagsan bay u soo ururisay runtii culays badan oo dadweynaha iyo xildhibaanadaba fuuli lahaa ayaa inagu soo ururay markaa si wanaagsan bay inoogu qabsoontay alxamdulillaah rabbil caalamiin. marka waxaan u mahadnaqayaa iyagana xildhibaanadii isa soo taagay ee faraha badnaa ee maanta aan nasiib u yeelanin inay soo baxaan laakiin natiijadii si wanaagsan oo mahadle ugu qancay. waxa laga maarmaana in aynu iibgeyno oo gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay iibiso waxqabadka iyo guusha iyo quruxda ay reer Soomaaliland ay xaqiijiyeen. waxa weeye siyaasaddeena arrimaha guduhu aad bay u xoog badan tahay aad bay u qurux badan tahay oo waxa ka maraga qaabka ay doorashadu inoogu dhacday iyo sidaynu isu maamulay. haddaba maadaama aynu u hirdamayno ama aynu u tafaxaydanay sidii aynu u heli lahayn ictiraaf caalami ah ictiraafka caalamiga waxyaabaha inoo goynaya waxa ka mid ah waxa aynu qabsanay iibgeynteeda. xisbiyada mucaaridka iyaguna si fiican oo gobonimo leh ayay iyaguna uga shaqeeyeen doorashada aad iyo aad bay u mahadsan. marka waxaan leeyahay gacmooda jir bay wax ku gooyaan. waxaad oran kartaa Soomaaliland labada gacmood boo isku geysay doorashadan iyadoo doonaysa inay himiladoodu ka fog tahay doorashada oo ay ku helaan insha Allah bismillaahi kariin ictiraaf marka la arko sida nabadgelyada leh ee bilaa turxaanta ah ee isqancinta leh la ogaado dabeedna ay noqoto istabta kale loo gudbayaa in la helo ictiraaf insha Allah bismillaahi kariin. madaxweynuhu wuxuu runtii ku suntan yahay inuu ka odeeyay golayaasha deegaanka gaar ahaan Hargeysa si la iskugu tanaasulo oo aanay carqalad uga dhicin maadaama magaalo weyn tahay isagoo ixtiraamay iraadada shacabka ama doonitaanka ay dadku doonayeen oo deedna hirgeliyay arrintaasna aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha.